إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الله سبحانه وتعالى نعم كي سوغو نمعيي الضمضة وكوا فربضان وأن لا تري كرين ولا تركوبي كرين لكن نمعادة أقوين وإلهي أقول نمعيي جن إيا إنسي في آخر الزمان وإنه إلهي كسر دحدري رسولك صوبان صلى الله عليه وسلم والله صدري شريعة ما يستران كدين رسولك وسو غارسيي امدا شرعي لا صدري او ما يستران او wax kaste umadu u baahan tahay koobsaday waxaan rabaa ilaahay idankiis dhowr nuqdo inaan isdul taagno marka laga hadlayo shariicada islaamka dhowr nuqdo qofku inuu fahmo waa muhiim hadduusan dhowrkaas nuqdo fahmin qofku adduunyada wuxuu ku noolaanayaa taxayur aakhirana waxaa dhici kartaa gooraan wax laga gaarin inuu shanlaayo sidaas darteeda waxaa laasim ah inuu qofku dhowrka mas'ale soo socota fahmo wixii xaqa oo uu fahmana siday tahay uu raaco ugu horeyn waxaan rabnaa inaan niraan shariicada marka laga hadlayo awalan sharci in la jideeyo ama la soo dejiyo waa xaq Allah iska leeyahay asaguna uu ballan qaaday rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo uu soo diray xataa qayb kama siin oo ma dhihin shariicada islaamka ku soo dhiibay qayb ku dar ama inta doonto ku dar laakiin dhammaan Allah isaga soo dejiyay waa arin ilaahay la kaliyahay rasuulkana sallallahu alayhi wasallam wadiifadiisa ama shaqadiisu waxay tahay diinkii ilaahay soo dejiyay u soo dhiibay siduu ahaa inuu ummadda u soo gaarsiiyo sagoo dhammaystiran waxna aan laga jarin waxna lagu darin inta kale jinni iyo insi culumo iyo caamo waajibka saaran wuxuu yahay diinkii nabigu soo gaarsiiyay inay u hoggaansamaan haddii saddexdaas martaba ay iskaga ka daranto taxayuraad ku noolaanaysa waa inaad fahanto sharciga yaa soo dejiyay waa inaad fahanto wadiifada nabigu maxay ahayd sallallahu alayhi wasallam waa inaad fahanto wadiifada culumada iyo dadka kale maxay tahay wadiifadooda taas waa inaan fahanno al-imam محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمه الله وحيري من الله الرسالة وعلى رسول الله البلاء وعلينا التسليم الله حقي سوحا كاتمت رسالة دينك وحكيمت الله حقي سأساقا سودجي رسول كان وحا واجب كوا رسالة أصدت كينو سوق قارسيو annagana waxa waajib nagu ah risaalada xagga rabbi ka timid inaan u hoggaansan
saddexdaas hadday iskaga kaa qasmaan waxaad noqonaydaa qof taxayur ku nool wuxuu imaamu albukhaari ku sheegay hadalkaas baabu qowlillaahi tacaala yaa ayuha rasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal famaa ballaqta risaalata wallaahu yacsimuka min annaas shayga allah uu la keli yahay waa risaalada diinka wey risaaladu waa waxa nabiga lala soo diray sala allahu calayhi wasalam waana soo xasilay arrinkaas oo diinkiioo kaamil ah uu ilaah subxaanahu wa tacaala nabiga la soo diray ilaah wuxuu yidhi subxaanah laqad manna allaahu cala almu'miniina id bacaa fiihim rasuula min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba waalxikma wain kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin ilaah wuxuu yidhi subxaanah ilaahay gallad iyo abaal iyo nicmo ayuu u galay dadka mu'miniintaa markii uu ka soo dhex saaray rasuul ayaga ku jinsi ah luqadiisa ay fahmayaan wuxuu sameeyo ay samayn karaan oo ku daya karaan ilaahay abaal buu u galay rasuulkaasoo dadka ku dul aqrinaya ilaahay aayaadkiisa dadkana ku dahiraya aayaadkaas uu ku dul aqrinayo oo aayaadka iyo axaadiista u aqrinaa waxa ay amrayaan raacidooda waxay reebayaan kaadidooda ayaa dahaarada qofka ku helaya wayucallimuhum alkitaaba waalxikma wuxuu rasuulkaasu dadka barayay ooy ahaayeen waxa uu aqrinaya ee loo soo dhiibay kitaabka iyo xikmadda xikmadduna waa axaadiista sidaas waxaa ku caddaatay waxa nabiga loo soo waxyooday waa laba shay waa kitaabka qur-aanka iyo axaadiista haabitada ee nabiga ka sugan sala allahu calay wasalam labadaba xagga rabbiyay ka yimaadeen waxyeyn ayaa la yidhaahdaa nabiga loo soo waxyooday ilaah wuxuu yidhi nabiga hortiis waxaad ahaydeen dad baadiyaysanoo dalaal ku sugan ilaah wuxuu yidhi subxaanah waanzala allahu calayka alkitaaba waalxikma wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlullaahi calayka cadiima waxaa ilaah nebiga suubanow dushaada ku soo dejiyey kitaabka iyo xikmadda kitaabku waa qur-aankii xikmadduna waa sunnadii labaduba waa waxyeyn ilaahay baa soo dejiyey nabiga sala allahu calayh wasalam rabitaankiisa maaha wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa waa waxyeyn waa laba waxyi oo ilaahay nebi maxamed u soo dhiibay sala allahu calayhi wasalam ilaahay wuxuu ku baray waxaadan horay u oqoon fadliga iyo abaalka ilaah kugu leeyahayna waa mid weyn ilaahay yidhi ilaah wuxuu yidhi subxaana asagoo la hadlaya zawjaadkii nabiga suban sala allahu calayhi wasalam wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illaah waalxikma xasuusta waxaa lagu aqrinayo guryihiinna oo ah aayaadka ilaahay iyo xikmadda aayaadku waa qur-aankii xikmadduna waa xadiidkii labaduba waa laba waxyi xagga rabbiyay ka yimaadeen nabiguna labadaasuu aqri jiray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh taasu waa risaaladii xagga rabbi ka timid xadiid iyo qur-aan waa diinka ilaahay nebi maxamed u soo dhiibay sala allahu calayh wasalam rasuulka dushiisa waxaa ahaaday gaarsiin oo diinkaas loo soo dhiibay oo ka kooban qur-aanka iyo sunnada siday ahaa diinkaas asagoon wax laga jarin waxna lagu darin inuu dadka soo gaarsiiyey sidaas ayaa waajib ku ahayd sida rabbulcaalamiin uu yidhi fahal cala rusuli ila albalaaqu lmubiin rususha dushooda miyuu ahaaday gaarsiin cad maahane wax kale ma ahaanin wey wax kaloo dushooda lama arko inay diinka wax ku daran iyaga ma saarna midda kalena dadka qulubta inay hanuun ka geliyaan ma saarna laakiin waxaa saaran waxyeynka loo soo dhiibay inay dadka gaarsiiyaan si gaarana ilaa rasuulkiisa wuxuu yidhi wamaa cala arasuuli ila albalaaqu lmubiin rasuulka muxameda sala allahu calayhi wasalam dushiisa wax kale ma ahaanin waxa ahaaday in uu soo gaarsiiyo diinkii loo soo dhiibay gaarsiin cad oo sidii ugu kaamilsaneed oo cad ilaah wuxuu yidhi subxaana fa inamaa calaa rasuulina albalaaqu lmubiin
rasuulkeenna dushiisa waxa ah oo kali ah oo aan wax kale dushiisa saarnayn waa gaarsiin cad ilaahayna wuu amray gaarsiintaas oo wuxuu yidhi yaa ayuha rasuulu balligh maa unsila ilayka min rabbik rasuulka subanow gaarsii waxa xagga rabbi lagaaga soo dejiyey dadka gaarsii ilaahay baana dadka kaa ilaalinaya rasuulka sallallahu alayhi wasallam wadiifadaas waa gutay waxyeenkii loo soo dhiibayna sida ahaa ayuu dadka u soo gaarsiiyey sidoo ahaa marqaatina waxa uga furay dadkii uu dhex joogay ee ugu fadli badnaa ummadiisa nabiga ka gadaal oo ah saxaabadii Bukhari iyo Muslim waxa ku sugan maalintii yawmul hajj al-akbar yawmun nahri hajjatul wadaa nabigu inuu la hadlay oo uu ku yiri alaa hal balagh war ma inii soo gaarsiiyey diinkii ilaahay ii soo dhiibay risaalada ilaahay ii soo dhiibay war ma inii soo gaarsiiyey qaaluu nacam markaas iraha waadna soo gaarsiiyey markaasuu nabigu yiri allahumma shad ilaahu marqaati ka noqo risaaladaad ii dhiibtay inaan gaarsiiyey ilaahu marqaati ka noqo sidaas yiri nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam markaasuu yiri fal yuballigh ash-shahidul ghaib qofka jooga oo risaalada iga maqlay qofka aan joogin ha gaarsiiyo taasuna waa wadiifada culimadu ay iska leedahay oo ah diinkii rususha ay ka dhaxleen sidoo ahaa ayagoon wax ka jarin waxna ku darin inay gaarsiiyaan ummadda sidaas weeyaan nabigu sallallahu alayhi wasallam xadiidka ibn Maajah iyo qeyrkiis ay wariyeen wuxuu u duceeyay qof kasta oo diintii wax kamida ka maqlay oo asagoon wax ka bedelin dadka gaarsiiya taas uu duceeyay wuxuuna yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiidka Abdullah ibn Mas'ud nadara Allah imra'an sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'a ilaahay hanuriyo qof wax naga maqlay oo shaygi uu naga maqlay sidoo u maqlay u gudbiyay waxna aan ku darin waxna aan ka jarin waxna aan ka bedelin sidaas uu nabiga sallallahu alayhi wasallam taasuna waxay ku tusaydaa wadiifada culimada dadka dushooda waxa ah inay hogaansanaadaan waxyeenkii nabi maxamed loo soo dhiibay sallallahu alayhi wasallam dadka arintii dushooda ahayd markii ila risaalo soo dajiyay nabiguna sallallahu alayhi wasallam uu soo gaarsiiyay dadkii waa qaybsameen ee ayaga wixii laga rabay lagama wada helin waxayna u qaybsanaadeen qof muwaffaq ah ilaahay tawfiiq siiyay ilaahay wanaaga waafajiyay raacay wadadii xaq ahayd oo nabi maxamed dadka soo gaarsiiyay sallallahu alayhi wasallam iyo qof tawfiiqda ilaah ka siibay oo subulka kale raacay oo istislaamkii iyo inqiyaadkii laga waayay sida labadaas ay u qaybsameen ilaahay subhanahu wa ta'ala dariiqi u amray dada raacay ee ilaah uu yiri wa anna hada siraati mustaqiman fattabi'u kan waajidkayga ya raac dariiq duruqdi laga reebayna dada raacay oo ilaah yiri wala tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili haraacinina wadooyinka yaryar ee dhinacyada u leexda markaas waxa ay sabab u noqonaydaa raacidu jidka alle inay ka kala geeyaan taasay sabab u noqonaydaa intaas waa nuqdada koobaad oo aan doonayno qof walba inuu fahmo shariicada maxaa alle subhanahu wa ta'ala uu la kali ahaa maxaa nabiga wadiifadiisu ahayd adiga muslimu maxaa laga doonaya nuqdada labaad shariicada ilaah soo dejiyay subhanahu wa ta'ala sifaadeeda waxa kamid ah البقاء والعموم والكمال شريعة وشريعة إله ugu talagalay subhanahu wa ta'ala adoomadu inay ka diin dhigtaan ila qiyaamo ka dhacayo oo ay baaqi noqoto ila qiyaamo ka dhacayo wax ka dambeeyo oo nasaqayana aysan jirin baqaa iska leedahay sifa leeyahay waxa kamida sifaadeeda al-umum wa sifa wa shariica aam ah oo jinni iyo insi dhamaan laga doonayo inay ka diin dhigtaan qof dhihi kara aniga la ima soo dejinna uusan jirin hadduu yiraahdana uusan ku badbaadin sifada saddexaad oo shariicadan iska leedahay waa kamaal wax qofku u baahan yahay caqiido ama cibaado xugun ama muamalo shariicadan way koobsatay
umana baahna dhamaystirid iyo dib in wax laga raacsiyo saddex sifaba waa iska leed shareecadan ilaahayadu ugu talagalay inay baaqi noqoto waa diintu u doortay aakhiru zamaanka ilaa qiyaamuhu ka dhacayo rasuul dambo la soo diraya ma jiro nabi dambo loo waxyoonaya ma jiro waa shareeca ayada loogu talagalay ilaa qiyaamaha inay baaqi noqoto ilaah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri ma kana muhammadun aba ahad min rijalikum walakin rasul allah wa khatam an-nabiyyin nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam ma ahan mid inin kamida aabihiis laakiin waa rasuulkii alle waana midkii anbiyada lagu soo qatimay lagu soo afjaray oo wax rasuul ah uusan ka dambeyn iyo wax nabi ah hayla nabi hadii la qatimay in rasuul la qatimayna wa min babil awla wa ahra bukhari muslim waxa ku sugan min hadith muawiya nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam inuu yiri man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din qofka ilaahay khayr la doono ilaahay diintu saami ka siiya ilaahay diinka ayuu fahamsiiya wa inma ana qasim wallahu yu'ti anugu waa bixinaya laakiin ilaahay baa qofka siiya nabigu diinka waa sheegaya laakiin qofkiiba nasiibka ilaahay ugu talagala ilaahay ka fahamsiinaya markaasuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam waana kelimada tusayda baaqi ahaantaha shariicada kelimadan dambe wuxuu yiri walan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amri Allah لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وفي رواية مسلم حتى تقوم الساعة نبي وحيري صلى الله عليه وسلم أمدان كسولمي سيدا رواية ذاك الإرادة والضائفة قيب أمدان كمتأ وإلهي حق كسوي كسولميسو إني أرنك اللي كتاقيهين قفك خلافة أما أكرقار الديدانا وحبك مدبيو إلى أرنك اللي أكيمادو أرنك لنا وحلو لجدا قيامها إنو سود دوادو أو رواية مسلم له حتى تقوم الساعة إلى ساعة قيامه أي كيستاكتو مركا وشريعة باقي نقونيسا إلى قيامها أو يمادو أو سود دوادو شريعة الله طلق لوي وحكا بي أو شريعة إلهي سود دجينا يرمجرتو شريعة صفات إذا وحا كمدين عام تاهي جني إيا إنسي دمان maalinkii nabiga la soo diray sallallahu alayhi wasallam laga bilaabo qof kasta oo maalinkaas joogay ilaa qiyaam saaca shariicadana loogu yeeraya waajibna waxa ku ah inuu aqbalo qof ay u banaan tahay diin kale inuu ka diin dhigtaa maalinkii nabi maxamed la soo diray sallallahu alayhi wasallam ka gadaal ma jiro qof ay u banaan tahay inuu diin kale ka diin dhigto ma jiro ilaa wuxuu yiri subhana wallahu yad'u ila daris salaam ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إلهي وإنا سبحانه وحدتك كهنونين إياه وضبط توصن تاسو يريا والله يدعو ويريا الله نقف كستو إلهي ويريا وجني ينسي كمدا وحقو يريا وددبت بالدا دار السلام ودار الجنة وحانا إلهي كهنوني يقف كودونو وضبط توصن الرلاد إلهي لغو كارو الجنة تكتين لحليحا آيات waxay raadaan cilmigu waxay ishaaraysaa ummatu da'wa iyo ummatu ijaba ummatu da'wa waxa la yiraahdaa dhamaan maalinkii nabiga la soo diray sallallahu alayhi wasallam laga bilaabo ilaa qiyaamuhu ka dhacayo qof kaste waqtigaas nool ee kamid ajiniyo is qof kaste soo maray waqtigaas waa ummatu da'wa waxa loola jeedaa da'wada nabi maxamed ku wajahan dadka loogu yeerayo waa asaga ummatu ijabana waxa la yiraahdaa وأمتي أقبشي دعوذاس إسلام لماذا قشي الرسالة ربي سود ديري أقبشي أهوغانسنتي إلى مركو يري سبحانه والله يدعو فعلك مفعولك والحذف يدعو مفعولك والحذف أي يدعو كل أحد قف كستو ويري إلهي أحد كستو ويري إلى دار السلام ويري أسبابها مفعولك اللوحد في كميطة لإفادة العموم إنه عموم فائدي قف كستو جني إنسي كميطة أيا ربي ويريا تاسوا إشارة أو آيات إشارة يسو أمة الدعوة تلك الدين كان لوغو يريا ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قفكو أصابوا الدونانا وضد التوصن وكوهنونين إياهو وأقبل يا الرسالة دي تاسونا وحي إشارة إلى أمة الإجابة ضد إلهي توفيق سيئي أقبل الرسالة دي أقبل الرسالة دي وضد كاس حق أقبل أو قلي دينك إسلامك
مسلمين تكمد نقضي شريعة إسلامك شمول كذا وحا كمد إني عام تهي عد والبا لقد دونيو إني يوهو جانسنتو إلهي قول كيسا سبحانه وإلهي يري يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا رسولك سبحانه واحد كتر هذا الوير ضدك وارددوا أنيقا وحانا هاي إرقي إلى صدري وحقنا الله صدري دمانتين هل قف oo jinniga insi kamid maalinki nabiga la soo diray laga bilaabo nabi maxamed rasuulullah saga loo soo diray nabigeena subhanahu sallallahu alayhi wasallam hadiiska sahih muslim ka wuxuu yiri walladhi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma ummadaas waa ummatul ijaba hadiiskan si gaar u dhawaaq waxaana ku tusaya inaysan ahayn ummadu kuwii xaq aqbalay waxa nabigu yiri والذي نفسي بيده ما من أحد من هذه الأمة والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد ولفظ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني قف أمتان كمدا يهود هذا كريستان هذا إدو ربا هذا قف أمتان كمدا أو إمقلي ومقلي نبي محمد الله صلى الله عليه وسلم كدبنا ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به كدبنا دنتا أصدقون رمين رسالة يدينك ليلة صدري إلا كان من أصحاب النار وحو كمت نقضى ريرها النار قف كستا أمتان كمدا أما يهود هذا أما كريستان هذا أما مجوسا هذا إدو ربها النور مقلي إن لي صدري كدبنا aan rumayn diinkii leela soo diray saas ku dhinta wuxuu kamid noqdaa reeraha naarta yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam marka diin kale oo markii nabi maxamed la soo diray kadib ilaah uu aqbalaya ma jirto illa islaamnimada maahan wax diin oo kale ilaahay aqbalaya ma jirto sahih muslimka xadiidkaas uu ku sugan waxaana rumaynaya ilaahay qowlkiisa subhana oo ilaah uu yiri waman yakfur bihi min al-ahzabi fan-naru mu'iddu إلى وحي قفك كفريا قرآن كالنبي لو سو ديبي صلى الله عليه وسلم أو كوحاها كلا دوان كميدا أما يهود أما كريستان أما مجوسي أما الذين كلا أنوه كان سمين كتاب كاس قف كاس مكان كالله بلنقاضي وجهنم والنار فالنار موعد سعيد بن جبير أرضك عبد الله بن عباس وحيري آيات تاسو waxay sheegaysaa qofka madhabtu rabaha sheegto milladu rabaha sheegto haduusan u hogaansamin kitaabka ilaah nabi maxamed u soo dhiibay sallallahu alayhi wasallam qofkaas ahlu naar noqon ilaahayna ma aqbalayo wixii kale oo ka diin dhigto shariicadan sifadeeda saddexaad waxay tahay waa kamaal waa shariicad kaamil wax kasta oo ummadanu ay u baahan tahay shariicadan way ku jirtaa way dhici kartaa qofku inuu garan waayo laakiin ma dhici karto shariicada insan ku sugnayn wax kasto qofku u baahdo ama usuusha diinta ama furuucdeeda diin ahaan wixii loogu baahdo ilaahay wuxuu yiri subhana al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-diina maantaan inin kaamil yeelay diinkinu ilaahay al-yawma akmaltu lakum diinakum diinkinu maalinka maantaan inin kaamil yeelay maantaas waa maalinkii nabigu sallallahu alayhi wasallam oo Arafat taagna maalin jumca ahayd sanadii 10 hijriyada hajjatul wadaa maalin jumca oo Arafat taagnay kadib nabiga sallallahu alayhi wasallam 8 casho wax ku dhow ayuu noolaa kadibna ilaahay uu oofsad maalin kaas ilaahay yiri diinkii waa in kaamil yeelay nimcadii aan dushina ugu talagalayna waa ku dhamaystir nicmadii islaamka ilaahay uu dhamaystir وحير حافظ ابن كثير أنا تبى صعدت ورضيت لكم الإسلام الدين وحن رالي إن كجا هنا واحد تهاي حق الدين أهان وحلق الدين دكتو وإسلام لماذا أوكله حافظ ابن كثير آيات داس تفسير كذا وحيري هذه أكبر نعم الله عز وجل تنوحي كمتهاي إلهي نعم كيس مدة قوي دين لما يستران أو واحد كستر الله بعد اللي جهليه إلهي آخر زمان مسودجيو ونمعada ugu weyn oo ilaahay adoomada u soo dajiyay ummadan dushoodana ugu nimceeyay haythu akmala lahum ta'ala diinahum
ماشا إله ما يسري أمدان دين كدي فلا يحتاجون إلى دين غيري أمدان أباها ميان دين أو أنا هين دين كود إله أسودجي ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلام عليه نبي قودي النبي أنا هين أمبا إن الله صدر النبي ضمن أمبا محايا النبي الشرعي اللي سودي به شرعيين أصغوا كامله يلا قف الدنيا إلهي وقانسم ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء سيدا استرت هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحا إلهي كدغي أنبياء مدكي لغو سو قتمي وبعثه إلى الإنس والجن إلهينا وحو الصدري جني إنس دمان وحي مالك نبي الله صدري لقد بالله إلى قيام وكدعي كسوناده إلهي أسوء الصدر فلا حلال إلا ما أحله حلال مجرو إلا إلهي وحو حلاليي معهن وحي الله حلاليي أو نبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا حرام إلا ما حرمه حرام نمجره إلا وحي إلهي حرمه معهن ولا دين إلا ما شرعه دين نمجره إلا إلهي مدكو جديي معهن نقطة مهم كواحد أو أي تاين هوستا كحريقه شرع مجره إلا إلهي دين كسو جديي معهن واحد دين أو دين نقو كرم مجره مركا لغا ريبو كي إلهي سو دجي wax shaygan wuxuu diinku noqon karaa inuu yahay alla inuu soo dejiyo bis si kale diinku ma noqon karo ma ahan sheekh hebel ay diinku ma noqon waynaad fahantaa sheekh hebel wuxuu yiri goormay diin noqdaan waa markay waafaqaan diinka alla soo dejiyo maxaa yeelay sheekh hebel shaqadiisu maxay yahay in uu gaarsiiyo dadka diinka alla soo dejiyo marka diin ma jiro illa ilaahay mid ku jideeyay maahan wa kullu shay'in akhbara bihi fa huwa haqqun wa sidqun la kadiba fihi وحكستو أو نبي شيغي صلى الله عليه وسلم وحكستو إلهي شيغي وحق ورون بينكم يجود سيداس ترادين إن دينتي كامل تاي وحكت من أن الأرق أن الله باهنين إن قدال وحلوغات ترو ومدو النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري مسلم من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قفك وحكو صدر أرهن كيغان وأمر الدين أرنك يجان دين كيجان شيئا هراء ومدهين أرنكاس لقى أقبل ما هو مردود محايا لي هذه شيء كمد يهي دين تناقص أول هي هدوسا كمد أهين الدين ما حقيقة مركا كمد ما هو شيء كسته أو قدال لوغا سوتيريو أو دين كي نبيغا إله لصدر عن هراء ومدهين ومردود ما الله أقبلي سببتو الدين كو أساقو كاملة إلى سودجي وحلوغو سوتر يدين ما كرمت ما كامل ما هدي ليرا وا كامل waxay noqonaydaa diintu hore kaamil uma ahayn naaqis ee taasa ka dhalanay taasuna waa baadi shariicada islaamka oo ila soo dhiibay waa mid kaamil ah nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam hadith abu daawud iyo tirmidhi iyo qeyrkiis bay wariyeen wuxuu yiri taraktukum ala mithl albayda laylaha kan nahariha waxaan idinkaga tagay wadacad oo habeenkeedii maalinkeedu isku mid yihiin macnaha meel mugdiya male meel oo qarsoon ma jirto sharciga islaamku waa cad yahay adu inaad garaweyda waa dhici kartaa laakiin kii mujmala mubayyan kala yaalo meel kala lagu cadeey la yasiqu anha illa halik sharcigaas kaamilka ee cad kama leexdo illa qof halaag samay maahane qof halaag samay baa ka leexdo sahih muslim kana waxa ku sugan salman al-farisi إلا ويديي أو لغو يري هل علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراط نبي نمين بري صلى الله عليه وسلم وحكستا حتى قابك سوريغا مركا لطغو لو حاجة قلتو خراط وكيفية قضاء الحاج قابك حتى سوري مركا لقالو لو حاجة قلتو حتى نبي نمين بري أو وحو كتغي مجر مياه قال أجل هاهوي شيء النبي كتجي مجرى صلى الله عليه وسلم وانا بري والبا حتى قابك اللو حاجه قلت وحير لقد نهانا ان نستقبل القبلة بقائد او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من 3 احجار او ان نستنجي بالرجيع او عظم وحير النبي النصوبان صلى الله عليه وسلم وحو نغا ريبay markaan xaaje gudanayno kaadi ama saxara inaan qiblada ula jeesano wuxuu naga reebay midigta inaan ku astajoono
oo aan iskaga marino kaadidii saxarada wuxuu naga reebay 3 dhagax daan dhagxaan isticmaalayno ama warqadaha iyo waxa la midka 3 ka yar inaan ku tahaaro qaadano oo aan ku astajono nabigu waa naga reebay sallallahu alayhi wasallam wuxuu naga reebay digay sida digada dameeraha oo kale ama selaf oo kale inaan ku astajono ku tahaaro qaadano wuu naga reebay marka wax uu reebay ma jirto hadduu marka la xaajo gudanayo uu dhammaystiray oo si walba u tilmaamay waa maxay waxa ka weyn oo qarsoon marka miyay dhici kartaa wax ka weyn inuu ka tegay asagoon cadayn taas wuxuu ku tusayaa shariicada kamaalkeeda iyo inay dhammaystirtay wax kasta oo ummaddaanu ay u baahan tahay dhammaan sahih muslim kana waxa ku sugan min hadith abdullah ibn amr ibn aas radiyallahu ta'ala anhuma rasuulka ilaahi sallallahu alayhi wasallam inuu yiri innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yundirahum sharra ma ya'lamuhu lahum aniga nabi iga horeeyay ma jiro illa waajib waxa ku ahaa oo xaq ku ahaa ummadiisa inuu tuso waxa ugu qayr badan oo uu og yahay uuna uga digo waxa ugu shar badan ee uu og yahay nabiguna sallallahu alayhi wasallam sidaas waajib ku aheed waana midka u gutay sidii ugu kaamilsanaa wax kasta oo khayr ah ayuu ummadda u sheegay wax kasta oo shar ah ayuu ummadda uga digay إمام البيهقي شعب كوخو كوري من حديث عبد الله بن مسعود إن رسولك يري صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنه ليس شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وإنه ليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه شيء مجرو جنة إنين دوية نار تإنين كفوغية إلا وإنين شيء وإن أمري شيء مجرو نار تإنين دوية جنة إنين كفوغية إلا وإنين كريب وحباقية مجرو إن أدوكو قروي دا ويدعي كرتا لكن شريعة وحكما مقنا هذا أدوكو قروي دا متقرنا يريدسو لكن شريعة وكامل وأنا ما يستنمت تاسنا وحابا مستاقوا الرمينية إلهي قول كيس إله أويري ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إلى وحيري وحن كسو دجنا النبي سبحانه صلى الله عليه وسلم دوش هذا كتابك وحول بعضين لعضين درادي شيء إن اللي قلتين أو وحول بعض أمد الدينهان أقوباهان تاي الله عديو سيداسان أقو دجنا هنون درتي سنو سو دجني نحريس درتيدا نو سو دجني بشاره مسلمين تا يا مؤمنين تا لو بشارينا دراديدا يا نو سو دجن ابن حبان وحوري من حديث ابي ذر وحير ابو ذر الغفاري رضي الله عنه تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحي الا عندنا منه علم وحنجا تغي رسولك صلى الله عليه وسلم ايضا شمبر باليه سكدكدين يا هودا وسن جيرين إلا علم أن كهيسن حتى شمبرت هودا مرة صدولس أنه علم كهيسن ساس النبي إلهي كوفصد صلوات الله وسلامه عليه أصل كاس وحكمية هي أصولش أصل كأقوم مهم سن وقونا نعفق بدن وحنا كل شيء حرف واحد عموم الرسالة صلى الله عليه وسلم رسالة النبي إليه هي عام لبد نعبا وعام marka laga fiiriyo adoomadu waxay u baahan yihiin waa wax uu ka tagay diinka islaamku ma jiro ilaahi wayna uma baahin ummadan ahad ka dambeeya nabiga oo diinta wax ku dara uma baahin ilaahi uma baahin kaliya waxay u baahan yihiin waxay tahay diinkii nabiga lagu soo dajiyay oo sidii waxna aan lagu darin waxna aan laga jarin in ummadda la soo gaarsiiyo loo cadeeyo sidaas daraadeeda risaalada nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay leedahay laba cumuum labadaas cumuum oo aan wax takhsiis marnaba gelin dhanka koobaad waxay caam ka tahay waxa adoomadu ay u baahan yihiin dhanka labaadna waxay caam ku tahay cidda nabiga loo diray salawaatullaahi wasalaamu calayh labadaba waa caam wax kasta oo adoomadu u baahan yihiin way caddayn hal shay oo adoomadu u baahan yihiin haddii laga hadlayo usuusha diinka iyo caqiidada iyo furuucdiisa haddii laga hadlayo nuu xaq ah oo adoomadu u baahan yihiin oo ummadan ay u baahan tahay oo ka tagay ma jiro waxa shariicada islaamku cadayday dhammaan waxa adoomadu u baahan yihiin
آداب قضاء الحاجة لغا هدلو وحا شريعة إسلام كو عدايدي نين إيا حاسكيس مركي كل ميان آدابتي وكل ميان وحا شريعة عدايدي آدابتي أسيحانا قفك مسلم كا آدابتي أسو كعيو آدابتي أستاغي يمدو كفريسايو شريعة إسلام كو وحا عدايدي آدابتي وحو عنو إيا مدو وحو عبيو وحا عدايدي آدابتي مركو قاديدك كوريو إيا مركو كدغيو وحا عدايدي آدابتي سفرك إيا مركو نغاديه آدابتي أباهي أحكامتا waxay cadayday aamuska iyo hadalka ahkaamta ku saabsan waxay cadayday cuzlada inuu dadka ka dhaxbaxo iyo inuu dadka la noolaado labadaba ahkaamtooda ka hadashay waxay cadayday qaniga ahkaamta ku saabsan iyo ahkaamta qofka faqiirka ku saabsan waxay cadayday ahkaamta ku saabsan qofka caafimaadka qaba iyo midda ku saabsan qofka buka ama jiran waxay cadayday ahkaamta ku saabsan waqtiga nabadgelyada iyo waqtiga colaadda waxay cadayday dhammaan أحكامta geerida ku saabsan iyo midda nolosha ku saabsan waxa nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam arshiga weyn ee makhluuq oo dhan ka sareeya waxa nabigu tilmaamay malaa'ikta qarsoon oo loo jeedin wuxuu tilmaamay nabigu jannada iyo naarta wuxuu tilmaamay qiyaamaha iyo waxa dhexdiisa ka jira wuxuu nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam macbuudka aan caabudayno tilmaan dhamaystiran ee inta adoonku uu u baahan yahay dhamaystiraysa wuxuu nabigu cadeeyay sallallahu alayhi wasallam dhammaan anbiyadii ka horeeyay iyo ummadii loo soo diray wixii dhex maray iyo abaalmarinta ay la kala kulmeen qoladii anbiyada raacday iyo qoladii beeniday wuxuu nabigu cadeeyay sallallahu alayhi wasallam waxa aan u baahanahay ee cadawga makrigiisa iyo colaadiisa sidaan uga badbaadi lahayn iyo asbaabta looga gargaarsado cadawga ee ummadan haday raacdo aysan dhici karin cadow hor istaagi kara iyo mid u babax dhigi kara midnaba ummaddu waxay u baahan tahay kaliya inay fahmaan shariicadii nabi maxamed lala soo diray sallallahu alayhi wasallam si ay ugu noolaadaan ciise adduun iyo raalli ahaansho ilaahay ay u gaaraan ilaahay jannadiisana uu aakhiro ugu abaalmariyo sidaas daraaddeed waxa waajib ah oo ay tahay shayga waajibka diinkaas kaamilka ah sida uu yahay in loogu hogaansamo waxna aan gadaal laga raacsiin waxna aan laga tegin sidaas waajib aad iyo aad wuxuu ilaahay iyo rasuulkiisu nooga digeen diintaas in laga leexleexdo ama wax lagu daro waxaan rabaa halkaas markaan joogo ciwaanka inaan wax yar ka sheego intaas ka gadaal waa nuqdada saddexaad nuqdadaas waxay tahay tamadhub muxuu yahay atamadhub tamadhaba tamadhuban waa masdarkii ficilkaas tamadhaba oo tamafcala masdarkeedii wey معناهدنا waxay tahay ittaba'a madhaban muayyana qofku tamadhab uu sameey macnaheedu wuxuu yahay madhab gaar uu raacay madhab gaar markuu raaco marka waa luqahantaas istilaahan maxaa loola jeedaa tamadhub istilaahan waxa loola jeedaa ittiba'u usul al-imam wa qawaa'idihi wa takhrij 'alayha وإمام أئمة المسلمين تكمت أصوشي سيا قواعد وحكو استنبات سجري قفكو إنو راعي وهدو علمية مركو قواعد راعي هدو عامية هنا إمام كاس أيو مذهب كيساما أحكام تكاقاطيو أو مذهب كاسو سيقارا راعي إلا سقو قواعد يوصول فهم مية والنوعاس هدو تمذهبكم موح بنانا مسوا waxaan banaanayn hadii sidaas ay tahay waxaan leenahay koow culimada muslimiinta waa warasatul anbiya horta waa kuwii anbiyada dhaxleen laakiin waxaan u baahanahay anbiyada iyo culimada furuuqda u dhaxayda inaan wax kamida fahmo taas aan u baahan waana nuqdadaas waa nuqdo muhiim oo hoosta inaan ka xariirnaa aan u baahan anbiyada koow sifaadooda waxa kamid al-ism ومعصومين مجفا رسالة أي أمة سوق جارسينيان قول يا فعل انت جفان جف إلى أمة وقتها واحد يكرمها دمان وحيدين أو أنبياء ضدك أي سوق جارسين ووضح حق قطعا أن شك يرجلك معصومين إذا كسكي تنلباتنا ولو وحيود أنبياء تنصدحاتنا وظيفته هو التبليغ إن ضدك سوق جارسيان رسالة اللي سوديبي صدح صفو لبا كميد علماء وحكومه والنقطه ان ربنا هوستا كحريم
laba kamida culimadu waxba kuma culimada looma waxyoodo oo waxay kuma soo dego waa koow talabaadna culimadu macsuumin ma oo raafidada waxay qabaan ismatul a'imma laakiin ahlu sunna wal jamaa ma qabaan ismatul a'imma ma qabaan yukhdi wa yusib ay qabanayo marka waa maxay waxay anbiyadii ka dhaxleen waxyooshadii loo waxyoonayay mana ahan ismadi waa maxay marka waa tabliiq cilmigii ka dhaxleen cilmigii ka dhaxleen markaasay ummadda inay gaarsiiyaan laga doonayo cilmigii ka dhaxleen marka intaas ogaano culimada shayga waajibka ku ah wuxuu yahay cilmigii anbiyada oo wax lagu darin oo wax laga jarin sidoo ahaa in ummadda loo soo gaarsiyo sidaas waajib ku ah culimada muslimiintuna shaqadaas ay u istaageen ائمه المسلمين سلف صالح من الصحابه laga bilaabo ila ائمه ugu dambayda ee casrigan la soo gaaro dariiqadaas ay ku dadaali jireen ائمدي waaweynaa ee ilaahay siiyay cilmiga taqwada waracnimada waxay ku dadaaleen diinkii nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dhamaystiran dadka inay gaarsiiyaan waxay ogsoontii shariicada islaamka وإله سودجي وها كميت حكم منسوق أو لا نسقي وها كميت حكم كاس دليل كي كلام نسقي إن بدنا إسكما حاجة مرمر وايد عضايا وإسكو حاجة هل دليل كوه ذي كرا ناسقي منسوقي لكن إن بدنا لما مولود يكون كل شيء وها شريعة الإسلام كو إله النبي جو سودي بي كميت دليل عام يميت مخصص إن بدنا لما مولود يكون كل شيء وها كميدا شريعه الهي النبي او سو ديبي صلى الله عليه وسلم دليل مطلق اي قيد كيو ميل كلي كجير وها كميدا شريعه النبي الهي او سو ديبي دليل مجمل مجمل وحا ليرا وا لفظ سيدان اقبل كرا سيدان اقبل كرا midna aan ku cadeyn bal labada dalaala aysan kala xoog badnayn waxa jira ilaah mujmal kaliya umada uga mid tagine mid mubayyan oo la cadeeyay oo loogu talagalay kan in lagu fasiro sida badanna laba meelood ku kala jira way dhici kartaa in israacaan way dhacdaa qofkii marka caalimka ahaa waxay tahay wadiifada ay u istaageen culimadii ha ahaadeen al-a'immatul arba'a abu xaniifa imaam maalik imaam shaafici ahmed ibn hanbal iyo qayrkood maahan madaahibtu afarta kaliya a'imada mujtahidiinta una afar ma way badan aaday u badan waxay u istaageen in diinkaas oo shaamil ah oo naasiqi iyo mansuuqi la adeeyay ee xukunkii mansuuqaha la cadeeyay naasiqiisina la sheegay ee kii caamkaaha iyo mukhassiskiisii la jamciyay ee caamkii iyo wixii laga qasisay la cadeeyay ee mujmalkii iyo mubayyankii la jamciyay ee la isku keenay in ay ummadda u cadeeyaan shaqadaasi u istaageen mujmal ahaan guud ahaan dhammaantood marka la isku daro waa cadeeyay waxna kama tegin waa cadeeyeen si aday u cadeeyeen laakiin mid kasta kaliis marka la yiraahdo macsuuma imaam shaafici risaaladiisa wuxuu ku sheegaa hal imaam oo a'imada muslimiinta kamid oo jamciyay sunnadii nabiga ma jiro oo wada yaqaan hal xadiis ka fakan ma jiro bacda nabi qof ma jiro saasaradeed imaamkii waxa ku imaanaysa sunnadii qayb inay ka qarsoonto waxa ku imaanaysa qayb inuu garaway waxa ku imaanaysa qayb inuu arko laakiin sugnaashadeedu aysan u caday xadiisku inuu sugay sidaas waxay keenaydaa wax badan markuu waafaqo inuu marmar gaf saasa keenaysa laakiin dhammaantood ma wada gafaan oo waxa isma iskale ummadda guud ahaan ma dhici karto ummadda muslimka inay dalaal ku kulanto ma dhici karto macsuumiinay kay dhammaantood marka la isku daro laakiin mid maya uma aan macsuumin culimadii muslimiinta marka oo diinkaas cadeeyay ee bisleeyay in laga faa'iideysto juhuuddoodii waa arrin muhiim mana ka suulin culimadii muhaddisiinta ah ahlu sunna inay ka faa'iideysanayaan tusaalana haddaad fiiridaan madaahibta madhab walba waxaad helaysaa xufaadii muslimiinta ku jirta oo haddaad shaaficiye fiirido maxamed ibn isxaaq ibn khusayma oo xaafid ahaa waa shaafici ابن حبان سيدو كلا شافعيه بيهقي شافعيدي كميد حافظ ذهبي ابن كثير كميد حافظ من حجر غير كودا كميد ولا تريكر حداد مالك يفيدنا وا كو جيران حفاظ
oo ka mid yahay xaafid al-Maqri ibn Abd al-Barr haddaad fiirido xanaabiladii ay ku jiraan oo xaafid ibn Abd al-Hadi xaafid ibn Rajab al-Hanbali lama tirika muhaddisiinti xufaadi muslimiinta inay madhabkan raacaan wal akjir wayn u badnaayeen wali kuwa aan raacinna waa jiray oo madhab raacay way jiray way u badnaayeen in raacaan laakiin siday ahaayeen madaahibti marka la diiwaaniyay dadku labay ahay ama saddex oo khulaasada aan ku keeni doono insha Allah dad hadde imaamkaas uu madhabkiisa ka madhabka dhigtay ayuu iska raacaya wuxuu ka helo ama ha ahaado qowlku raajix ama marjuux ha ahaado saxiix ha ahaado ama daciif ha ahaado siduu yahay duuduubkiisu u qaata qaarka laakiin muxadisiinta waxay ahaayeen qawaacidkaas iyo usuushaas inay ka faa'iidaystaan ilaa waa diin la diyaariyey oo naasiq iyo mansuuq la jamciyey oo caam iyo khaas la isku keenay oo mutlaq iyo muqayyad la isku keenay oo mujmal iyo mubayyan laga shaqeeyay dhammaan inay ka faa'iidaystaan laakiin maadaama imaamkuusan macsuum ahayn markay u caddaato qowl aqwaashiisa ka mid ah inuu khilaafay naska sharcigay raaci jireen naskay raaci jireen imaamkana ma aflagaaday jirin mana baqsi jirin hoos uma nuqsaami jirin way u ducay jireen daliilkana waa raaci jireen saasayna ahaayeen sidaas ayay ahaayeen tusaale fiiri culamada muslimiintuna saas u sheegi jireen taajidiin subki dabaqaadka shaaficiyada wuxuu yidhi weliba waxaan rabaa inaan baraarujiyo masaa'ilkaas ay u caddaatay qowlka imaamku inuu khilaafay nas sharci ah oo ay naska raaceen ma ka saaraydo inuu madhabkii ka mid yahay ma ka saaraydo boqolaal masale hadduu ku khilaafo ma ka saaraydo saasayna ahaa jira weligood wuxuu yidhi taajidiin subki المحمدون الأربعة أفرت محمد أفرت محمد يكليهن محمد بن نصر المروزي محمد بن جرير الطبري محمد بن إسحاق بن خزيمة محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري من أصحابنا أفرت بأصحاب تاني كمدين الشافعي هاي وغيري قد بلغوا وغيري قد بلغوا ما قد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق ولبا وحين قارن درجة اجتهاد كمطلق هاي قارن هل كاسين ولبا قارن ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعي أرن كاسونا كما صارين إلى أصحاب الشافعية كمدين ما كصارين حيلا يوحد سيوغا مدين مرك ما دام الدرجة داس قارن وحيري المخرجين على أصوله المتمذهبين بمذهبه وحي كسو ساري جرين مسائل قواعد كي شافعي هي أصوشيس قواعد كي أصوشيس أي كس تخريجي جرين مسائل ساسوير المخرجين على أصوله المتمذهبين بمذهبه مذهب كي سين مذهب كدي جرين لوفاق اجتهادهم اجتهاد محايا اجتهاد كودي أي اجتهاد كيسي وافقين مسائل بدنا إلى كل خلاف جرين مت ما هلا ما صدق ما تاسونا كما صارين إلى الشافعيين هذا بقى طريقة نوعاس أو مركا أي عضاته إمام كان مذهبك أما الشيء كان كدم بيه قول كيسو إنه خلاف سيئة دليل شرعي إن دليل كشرعي قال الراعه وأمرك إلهي سبحانه وتعالى إن دليل كشرعي قال الراعه ودردارك النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن دليل كشرعي قال قول كعلماء خلاف سن دليل كإن الراعه وطريقة الصحابة إن الراعه دليل كشرعي قال قول كمخالف كاللغتغو ومذاهب المسلمين أئمة السلف الأئمة الأربعة غير كود ووصيته دي دردارن كود سيدا استرادين قفكو هدور راعه قول أي عطاته إنه دليل كخلاف سيء أو النص كي شرعي هاو خلاف سيء إلهي هو خلاف نبينا هو خلافي صلى الله عليه وسلم طريقة الصحابة هو خلافي مذاهبتي أئمة المسلمين سلف كانت ما هو خلافي قفكاس لكن ربيتان كيسو كسعودة إلهي وين وحوري سبحانه وما كان للمؤمن ولا مؤمنات
إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره إلى وقوله سبحانه نين مؤمن إيا قبر مؤمنات وما السقنان مرحدي إله إيا الرسول كيسو أرين حكميان خيار إني أسقنا ذي ما دعي كرتو هذا عداته حكم كان إلى سيدة سكير نبي سيدة سكير صلى الله عليه وسلم وما بنانا نين مؤمن إيا قبر مؤمنات إن أي خلافان أو ربيتين كود أي قاطان كانت تغان حكم كالله ما أبنانا ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قفك إلهي الرسول كي سعاسينا ضلال عد أيو لما وباديو أو كتغا نسكي شرعيغا راعة قول قلافسا إلى وحو يري سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم هكذا تونادين ضدك أمرك الرسول كخلافة صلى الله عليه وسلم فتنة إني أصيبته زيق إنه كدعه شرك إني كدعان بدعة إني كدعان ضلال إني كدعان قلوبته إلهي حقك الليحيه أما عذاب وحنوشيه كدعه هكذا تونادين وحير حافظ ابن كثير رحمه الله محاله لجهده فليحذر الذين يخالفون عن أمره محاله لجهده وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته وهو النبي صلى الله عليه وسلم الطريق سي وشريعة إلهي الله صدره فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله ضمان أقواشا إيا أعماشا وحالقوا ميزامية أقواشا إيا أعماشا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضمان أئمة المسلمين ضمان الضوامات أعماشا أقواشا ميزان وحاوة نبي محمد صلى الله عليه وسلم سقال لكم ميزامية فما وافق ذلك قبل وحي وافق نبي محمد صلى الله عليه وسلم قول كيس فعل كيس والله أقبله وما خالفه فهو مردود وحي خلافنا ولا ردنا على قائله وفاعله قف كيري أما سمية لقول ردنا كائنا من كان إدو ربها النغو مرتبة ربها الجارو مغو ربنا حوطه لقى أقبل ما ولقول ردنا سيدي كسونا عطيمك في حديث كسوة دليشدي بخاري مسلم من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد قفك كسوة دار الدين كي يغان وحان كميت أهين ولقول ردنا من لقى أقبلي أن تصيبهم فتنة محالو لجيدا وحالو لجيدا هو يري فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة وحبئي كرتقفك مركا قولك رسولك عدك صلى الله عليه وسلم سيدي إمام أحمد يري إلهي قلبك سئين الليحيو أو قالوا وحبئي كرتا إنه فاسق النقضة وحبئي كرتا مبتدع إنه النقضة قولك رسولك عد صلى الله عليه وسلم إنه أغطر ما قولك رسولك أيا قف بنو آذن قولك سلا قرب لك ما لا قرب لك إيوالك قولك رسولك صلى الله عليه وسلم تاسا دعيس عذاب عليم الدنيا آخر نغاكرة الدنيا وقتل وحد وحبس آخرنا وعذاب جهنم رسولك صلى الله عليه وسلم وفي حديث بخاري مسلم نقول شيء أئمة المجتهدين يخطئون ويصيبون واقفا وانا أصيبا أقواشوا دون ما إني أصيبا نبي محمد وحيري صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران قفك حاكم كمركو دلاله اجتهاده واجتهاد قف الأوأ أخوض خدو فله أجران لما أجروا ليه أجر وحكولا اجتهادك ودلاله إنه حق جاره أجر وحكولا إصابة أصيبي إيا موجنت وحق موجيه نبي وحيري صلى الله عليه وسلم وإذا حكم فاجتهد ثم أخضع فله أجر مركا قفك حاكمك هو حكميه أو اجتهاده أو كوكفه هل أجروا ليه أجر كاسو أجر الاجتهاد خض إيسنا ومغفور والله ضافية محايا لي ومقستين حقه عدنا كمال ليها لكن دقيقة كستو عداد خضع واجب يكون إنه كلابت وانا سيدا يريجين أئمة المسلمين قفك كدن بيا إمام كان إنه كوكفي أي عداتينا وما برنان إنه كراع وما برنان قول خطأ نقضي أو أي عداتي نسك شرعي إنه خلاف سيئي حجة إلهي لله هرتقما إلهي محل له هرتقيسا قفك واحد لقد دون يا مسلم كا مركا قول قادنيو حكم قادنيو
إنه حساب تمو هرستاق إلهي واحد أغاتي قول كان شيخ إنه خلاف سنية الناس شرعية واحد أغاتي وكو عضات حضات كتكتو إله مالك اللي هو هرقيو إيه اللي هو ويدي محاد كو جوابيس دي اللي هو إيران نابقى أنكو صوت ديري محاد أغاتكتي حقوكي وكو كام محاد ليه دونتا شيخ إيقا خلاف مياد ليه دونتا إلهي وحاس ملا لهرتي كرا شيخ إيقا خلاف ملا ليه كرا انت إلهي لهرتب سبحان الله ملا ليه كرا شيخ وإساقا إيقا أغا وحان يسيري ملا إساقا كأو ساسان أغاتي ملا ليه كرا إلهي ملا لهرتي كرا وحالا ربا ولال adduunka maanta inaad joogto wax kasta oo sameynaydo waxa aad ka tagaydo inaad ugu xisaabtanto hor istaaga Ilaahay oo aad qaado wax xujo ku noqon kara Ilaahay hortiisa laakiin waxaan Ilaahay la hortagi karin maanta aadan dhaqan ka dhigan taas waajib kuwa Imaam Shaafi'i risaaladiisa waxa ku sugan wa amma ma dallat alayhi sunnah فلا حجة في أحد خالف قوله السنة مرحبا سنة تستحقون قف سنة خلاف قولك سحجكم السنة حجة ما لما رأيكم مرحبا حكم كان سنة تست قولك خلاف سن وحجكم السنة دينك إلهي اسكمه ريمادو ما هن دين استعارضية وأساقد مسكور إيمانية ما نبينا صوبان صلى الله عليه وسلم hadduu noo sheegay xaakimkii inuu marna asiibayo marna gafayo muxuu noo dardaarmay haddii la iskhilaafo in sunnadiisa iyo sunnadii saxaabadan ku dhegno culimadu hadday iswaafaqaan oo mas'alada culimadu ku ijmaacaan ijmaacu waa xuja sharciya oo qofka khilaafa ilaahay jahannamo ugu goodiyo mana u banaana inuu khilaafo mar hadday culimadu mas'alada isku waafaqaan ilaahay weyna subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إلى وحده سبحانه قفك خلاف الرسول هنونك مرقوع عضارك قضاء طريق النبي وعدي نبي يري علي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيا سيدا سميي علي ودينك النبي وعضار أسوأ وعد قفك خلاف سبيل المؤمنين haddii mu'miniintu ay wada maraan diinta marka laga hadlayana mu'miniinta waxa matala waa culimada ee caamada masaa'ilka wax kuma leh ayaga itibaaca laga raba iyo inay culimada ku raacaan ee culimadu wada ay wada maraan qofka sabiil kale mara qofka nuucaasa nuwallihi ma tawalla waan mas'uuliyadiisa siinayna waxa uu mas'uuliyadeeda qaatay dushaan u saarayna mas'uuliyadda u qaatay oo inuu nabi maxamed khilaafay ما قاعد كرت إلهي ما قاعد هرتك دلو يرعى واد خلافتي صومها قاعد حكم كتبت النبي خلاف صلى الله عليه وسلم أبى المرين تإلهي نسود دير جرو هذا قاعد دورتي يا قف سبيل المؤمنين إجماع المسلمين تخلافنا واحد مسؤولية وقاتل مسؤول قديم وحنا قلنا إن النار تجهنم إليه سبحانه وتعالى سأسترد هذا مرق ولمد إسوافقا قف أمد بنانا وحكر وين وراه محاهري هذا إسقلافان ميزان وحاء كتابك اللي سنة النبي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلى وحده سبحانه هدي الضوطان هذا للدودين وحال راعي إجماع لكن هدي لا إسقلافه وعليه الله يا الرسول الله وعليه وكتابك وعليه رسولك وعليه مركو جوغي صلى الله عليه وسلم سقال لو جيج بعد جيسنا سنة دي سلو عليه إذا وعليه كتاب يسنة وعليه دانا وعلمات قفكي قرانيا وإنو كتابك سنة وعليا كان قرانينا وإنو حلومة ويديا دينك الله مرحبات اسقلافتا كتابك سنة وعليا ساس إلهي أمر وما اختلفتم فيه من شيء فحكم إلى الله إلى مرده سبحانه كات ربطان قات دي اللي اسقلاف ميت كاربت اسقاط هذا علومة اسقلافان كات دون تقاضوا مرده إله يا سيدا ودادك منهاجك آخرين يا منهاجك يتشوكتا مركز ودور قيل صامر قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا مركز يروى ميل ركو هرتمي كاثر التبرع دينكم مساسا ميل ركو هرتمي مية تاس محي متليسا waxay ka dhigantahay caamo warkeed caamadii tiri cilmigu waa aqli rag oo la aruuriyay taasay ka dhigan hayta ka rabta raac ma nabiga yiri ka rabta raac ma ilaaha yiri maxay ilaahayna leey
إلى واحد نحن ليه وما اختلفتم فيه من شيء فحكم إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ساس إلهي ليه سيداس واجبك نبي محمد محوري صلى الله عليه وسلم حديثك الترمذي أبو داود يقيم حديثك محور نبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد حديث عرباض مصاري إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا أرنتو waxay tahay qofkii noolaado in ka mid ah iskhilaaf fara badan u arki doona hay iskhilaafkii ma la ark ma dhacay miyana u baahnayn dardaarankii nabiga markaas sallallahu wasallam alayhi wa u baahan nabi maxamed wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin waxaad laasimtaan aniga dariiqada khulafa ar-rashidin مسألة كستول لا يسكو خلافه أصولها هاتو فروعها هاتو وإن الله بتاع حاجة وإن الله بتاع سنة النبي أدلس بتاع صلى الله عليه وسلم سيدا صدر دارك النبي قال طريقة الصحابة متعصي أحيانا مرة دي حديث كان النبي عضاضه وحلا قرب لقى متشري قلوب تودا وحي كوين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قلوب تودا وحي كوين النصوص الشرعية قف كخلافي أو قول كيسو ناس كخلافي درجته رب فضلك هكجارو علمك هكجارو أصلاً إمام كمل لغة دين مرتبة سهوس لغة دين أي نسك شرعي الرأي جرين وأنا الطريقة ده بتبادل ساسي هاي إمام مسلم صحيح يسوي كوري عن أبي قتادة وغير أبو قتادة عمران بن حسين أيام لا تشوفني جماعة قرابتنا أيام كل حسوني وحنا لا تشوفي بشير بن كعب أيام لا تشوفي مركز عمران حديث نبي كشيء صلى الله عليه وسلم وحديث النبي يري الحياء كله خير نبي يري صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير مركز يري بشير بن كعب إنا لن نجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا ومنه ضعف كتب تقبل وحا كقرا حكمة وحي شيء يسا حياة وحا كمتأ قيب وحسلوني إيا هيبت إيا قيب ضعف كيني هذا نبي نحوير كله خير من الحشاطر كاسوري قيب ضعف فيها كتب تقبل كقرا هذا بعض الحكمة الشيئية فغضب عمران حتى احمرتا عيناه عمران بن حسين وعرودي إلى عنده أي قدوتين أبقوا كلاب محايا لي النبي محمد يريء لي صلى الله عليه وسلم كاسولي بعض الكتب حقوقا كتاب هيبل وحقوقا انت هسمك وقفل كتاب هيبل وحقوقا حي وحوال بكتاب وحقوقا ما عن كتاب وحقوقا الله كف يا الضلال من كتاب والغيلي كرسوما والكتاب الأردن ما كتاب كلا رباوغو ياهي وحكمك إلهي سود دجيو النبي محمد وافق النبي حلو سودي ساسا لا ربا كتاب وحا كقرا كتاب حوي انت اسبوغ ما فيلم سيداس اصحابه هاي قول كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه قول كلا لا اقدغو وي ككلو لا جيرين وي كعرو جيرين إمام الترمذي عبد الله بن عباس وكوري وحوري عبد الله بن مسعود أو وحوري عبد الله بن عباس وي قلد النعل أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد النعلين وأشعر الهدي قيل هدي عربت وحي سمي جيرين سركة أيا وحلو سمي جيرين لغنتا وحلو قلينا لبا كبود وقلي قيلي هديغا وحال فهم يا قيلاس إنو يا هديغا حرم كاللوودي ساس ترادي عدناكو حد قد بمين wuxuu kala sameeyay nabigu waxa la yiraahdo ishcaarku waxay tahay in dhiig laga keeno halkaas deegta ama dhinaca geela ayaa midisaas loogu sareeyay dhiiga ka imaanay dhiigu ka keenay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam madhabka xanafiyadu ma ogol oo abu xaniifa wuxuu leeyahay waa mithla in neef xoolaa dhiig laga keeno ee la wado waa mithla waa suurad xumayn ma banaana saas u leeyahay fiir markuu sidaas xadiidkii u sheegay عبد الله بن عباس فيري حديث كاس إمام الترمذي مركو وريي وحو يري سيدا سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث فقال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة وكيع وشيخ إمام الشافعي
وغير حديث كان مركو وريي حفيرننا رأيك حنفية حفيرننا أهل الرأي قول كذا مسألة ما هم مسألة والبا مسألة إشعارك أو نفك هديك حرمك الله وديك إن لقاك كان مسألة كقبان أو إنه تي مثل حفيرننا وحقيمان ملك هتحقلننا مسألة ذا سوي صبرت وحيتها إشعارك وصنه قول كان أهل الرأي يقولوا بدع وحدها وشيق الشافعي ساسي هاينا أئمة المسلمين حديث كان نبي قول كخلافة قيمة ملك أي عضات ما هن إمام كير قيمة ملك ما إمامكو قيمه ليه لكن يخضي ويصيب قول كمركي عضاته إنه نص شرعي خلافة بدع وي مرد الدين لك دقي إلا هو شيء الدين لك دقي شرعينا كم ضاين وبدع ساسي دي جيرين سلف سو ما تشدي طبراني معجم الأوسط وكوري عروة بن الزبير إنه يمد عبد الله بن عباس أو كويرني هو ضدك وابادي عبد الله ضدك أدي عبد الله بن عباس بادي مركز يصير محي كل عام سانو بادي ضدك مركز يصير واحد ليضة قفك حج أما عمره صاحرتي مركو حرم كيمادو إيه طواف كسمي صعي وحلال نقكر أنا تمتع قبطاو سلدي تمتع قبطاو سيدا صدتك وشيء جيدا هوي سيدا صدتك وشيء جيدا مركز وحو يري صدتك وشيء جيدا مركو يري وولبا وحو يري فقد كان وحدها عروة بن الزبير فقد كان أبو بكر وعمر ينهيان عن ذلك أبها عمر بن الخطاب يا أبو بكر ويديد جيرين أرنتاس أبونا ضدك واحد أساس وشيء جيدا عفوا أبها ما أبو بكر يا عمر عبد الله واصوص على حديث كأبا كان عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس وحير أبو بكر يا عمر بن الخطاب ويديد جيرين أبونا واد بناينس أبونا واد بناينس كورن ضدك صادو بادينس ساسو كوي محيري عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس وغيري أهما ويحك آثر عندك أما في كتاب الله وما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيري أبو بكر يا عمر ما لبداس هوغي واد هوغتي ما لبداس كو لا دورانيا ما سوحا كتابك الله كسوغا نبينا عدي صلى الله عليه وسلم لبدا كا دورانيس نبيغا عدي تمتع ساسو كوي وفيرس أبو بكر يا عمر واللبدا الشخصي بعد النبي ugu fadli badan ummad واللبدا ugu cilmiga badan واللبا aan hubno ahlu janno inay yihiin واللبا tafsiirkooda iyo hadigooda nabigu noo dardaarmay sallallahu alayhi wasallam laakiin ma ahan anbiyo macsuumin ma ahan kuwa qowlkooda qowlka nabiga laga dhigo ee ayaga ay waajib ku tahay nabiga inay raacaan sallallahu alayhi wasallam sidii nabigana isma uma haystaan ma ahan macsuumin waa Abu Bakr iyo Umar hadii qowlka Abu Bakr iyo Umar markuu xadiiska khilaaf aan la qaaday ما دحي كرتا امام كدنبيه قولكيسو حديثك خلافه ان لا قاطو ما دحي كرتا شرع ما نقوكر دين ما نقوكر الهي لوغا عبسدا وناس امام احمد ابن عبد البر جامع بيان علم وفضله سعيد بن جبير وحي كوريين عبد الله بن عباس انو يري نبيغا تمتعي صلى الله عليه وسلم مركزو كوري قروة بن الزبير نهى ابو بكر وعمر عن المتعه عن التمتع أبو بكر يا عمر أيان نهيي تمتع حرير النبي صلى الله عليه وسلم التمتعي مركز عبد الله بن عباس كيري وراهم سيهلكون حم أمرين ضد كانوا إنه هلاك سميا أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر وحن ليه هاي النبي محمد يري صلى الله عليه وسلم وقال يقدم ليه أبو بكر وعمر الديدين بل وحو اسكرت بقى يفير أبو بكر يا عمر فضيلة كستو إليهين ونا كستو إليهين أتباع ذا النبي كمدي إما هن أنبياء كله أو قول كود النبي قال قرب لي كرم ما وين تفهمته وحي تاي وظيفة دودو دينك النبي أنا بدك أشياء ساسوي وظيفة دودو وصل ما هن معصومين قول كود قول كالنبي قال ما قرب لي هدي أبو بكر يا عمر قول كود مركو خلافه قول كالنبي صلى الله عليه وسلم راعد الله راعو أما قول كالنبي قال لك قرب لقول لقوها لك سميو محاضو ملايين إذا إمام كدن بي ما لقو بدبادية ما دعي كرتو
إلهي إنا مركا كعبصن oo aan nabiga sallallahu alayhi wasallam diinka ilaah noogu soo dhiibay qulubtayda ku weynayno sidoo yahayna aan u raacno sidaas aan la haboon Imam Tirmidhi wuxuu wariyay nin reer Shaam ah oo yimid Abdullah ibn Umar ibn Khattab markaasuu weydiiyay tamattuca oo yiri ka waran qofku inuu umra ku tamattuco oo inta umra xirto dhamaysto xalaalooba isla dilay xajka uu kadibna xajiyo ka waran markaasuu wuxuu yiri hiya halal tamattu waa halal markaas ninkii reer Shaam wuxuu yiri inna abaka qad naha anha midaan ahayd mid abaka igu jiro aabaha aadiday Umar ibn Khattab ku yiri ka war aduguna waxa leedahay waa halal markaasuu Abdullah ibn Umar wuxuu ku yiri araayta إن كان أبي قد نهى عنها وصنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم كورن هدي أبهي ديدي رسول كنا سميي صلوات الله وسلامه عليه أمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرك الرسول كالراعة ما أمرك أبهي سأسوكي مركا هدين مسلمه أهاي وغيري أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أمر رسول الله ما أمرك الرسول كالراعي كور ما هو ملايين عبد الله بن عمر بن الخطاب أبيهس إنه هو دقيق ما تحك وأبيهس وخليفك الرشيد كاه سو ما جديد ما لكن وحي تهاي وحن لا يسكو قلبي مرتبه النبي يعيد كلام ما لا يسكو قلبي قول كنبي انا عيد لما قرب قول كيس ساس ويه هذه مركه ان لا يسكرب دغي كرين قول كعمر يا قول كنبي صلى الله عليه وسلم قول كإمام أئمة المسلمين تكملة سيد أبو حنيفة مالك شافعي أحمد إيا قول كرسولكم لا يسكرب لغاية ما ديكرت مر هدو عداده سعاد أي عداته إنو سنحجاكو تاغنين قول كان كي رسولكم عديه وإن قول كرسولك للرعا صلى الله عليه وسلم عبادة بن سامي وحاكو سوغان ابن ماجه وحو راعي معاوية بن أبي سفيان يقول دولان روم لغو دولي markaasuu wuxuu arkay cibaadatu ibn Saami dad wax ku kala gadanaya dahab aan isla ekayn markaasuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dahab lagu ma gadi karo illa inuu isla eg yahay maahan markaas Muawiya wuxuu ku yiri aniga ma arkay riba inay ku jiro waliba wuxuu ku yiri ribaad cunayda inuu cibaada ribaad cunayda markaasuu anigu riba arkimayo Muawiya riba aniga ma arkayo mar hadii labadoodiba xaadir yihiin la kala bedelanayo oo aan midayn ahayn riba imam muuqato markaasuu yiri nabiga yiri aan kula yahay inuu kaas ra'yigaaga gala hadlayda Muawiya waa saxaabi ra'yigaaga gala hadlaysa nabiga yaa yiri ana la soo taagan sallallahu alayhi wasallam ilaahi weyna haduu duulaanka nabad iiga celiyo meel adiga mas'uulad ka tahay ku noolaamay ka waran mar alla markuu laabto Shaam ku laabtay waa ka guur cibaada markaasuu Madiina tagay Umar ibn Khattab ugu tagay Umar ibn Khattab markaas amiirul mu'miniin markaasuu u sheegay Umar maxaa cibaada u soo gurtay kaasuu u sheegay uu yiri nabiga yiri ayaan markaasuu wuxuu yiri uma arkayo aniga meeshaasan ku noolaada inuu ninkaas mas'uul iga noqdo markaasuu yiri laabo cibaadatu saamid ku laabo adiga iyo dad kula mida meel aysan ku sugnayn wax khayr kuma sugna waa meel xun Allah xumeeyo dad sunnada weyneynaya meel aysan ku sugnayn ee qowlka rasuulka ilaalinaya sallallahu alayhi wasallam ee wax aan la garab dhiga aysan jirin dadka noocaas meelaysan joogin khayr male ee ku laabo Muawiya warqad u qor wuxuu ku yiri wax xuguna ku mirid ma xukuntid asaga kamid ma ummadda xukun kaligiis meeshiisu iskaga noolaan kale dadkoo dhanna waa inaad amartaa qowlka cibaada uu sheegay oo nabiga ka soo naqlina adaada laga rabaa taas ka war saas ah saxaabadu dhulku khayr male hadaysan joogin dad sunnada nabiga weyneynaya sallallahu alayhi wasallam oo sunnada nabiga aan qowl kale garab dhigay ee markay cadaato sunnada nabiga sunnada u nusraynaya hadaysan joogin dhulkaas khayr male wax khayr male dhulka khayrkiisu waa ummadda noocaas markay ku sugan ee u nusraynayda sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam Abdullah ibn Umar wiilkiisi Bilal aha ayuu xadiis nabi u sheegay sallallahu alayhi wasallam wuxuu nabi Muhammad ayaa yiri la tamna'u ima Allah masajid Allah gabdhaha wa adooma ilaahi dumar ha u diidinina guryaha ilaahi oo masaajida
ilaahay ku caabudeen markaasuu anagu waa u diidayna markaasuu aad u aydu caayna waxay 3 goor ayuu lacnaday la'anaka allah ku yiri sida riwaayadaha gobol ku sugan 3 goor markaasuu booyay Abdullah ibn Umar wuuna ka istaagay meeshii ka tag meel lagu sugnaado ma meel nabi Muhammad qowlkiisa cad qowl kale la garab dhigay waa in qulubta mu'miniinta ay ku weynaata sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam waa badbaadada ummadda adduunka lagu badbaado aakhirana lagu badbaado waa waxa sabab qofka ugu noqda xawdka nabiga inuu ka cabo waa waxa sabab u noqda qowlka nabiga oo laga leexdo iyo diinto wax lagu daro inaad xawdka nabiga ka qabto waa wax sabab u noqdo sidaasay saxaabadu ahaayeen dhamaantood sidaasay ahaayeen taabiciyaalku sidaasay ahaayeen a'immatul huda al-a'immatu arba'a iyo qaybkood dhamaan waxay isku waafaqsanaayeen qowlkooda iyo qowlka nabigu markay iskhilaafaan sallallahu alayhi wasallam ka nabiga in la qaado sidaasay dadka amri jireen ijmaac ay ku ahaayeen dhamaan mid kasta oo kamida waxa laga soo naqliyay xadiiska markuu saxiix yahay isaga madhabiya waxa laga soo naqliyay qowlkayga iyo qowlka rasuulku markay iskhilaafaan ka rasuulka qaado إمام الشافعي إجماع كتلمان أو أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس قف كمرها عضاته سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حلال أمام بنانا قف قول كيس نغطه شيقيقا قلافسن مذهب كيقا قلافسن نغطه أمام بنانا إعلام الموقعين كل شيء علامة ابن القيم مقدمة صفة صلاة النبي نواكي كسو نقلية شيخ ناصر الدين الألباني ومقدمة رمتي فائدة بدن أو أي مضن إن ميل كستلو أخري مقدمة ذات أو قفكو أمان نقضى ضالب كي أخري سنة أما الشيقي أخرين يقول نقضى محايا لمقدمة ذات كتاب كقيبتي صدنا كمان فائدية سببتو أقفك هرتكو على غربة واحد طاي انقياد هوغان سنتاما إن لغاية هدان بهوغان سن لهلين سنة الله شيئا محوكا فائدي marka waa in la nashriyo oo muqaddimadaas aad loo aqriyo aad loo aqriyo way aad in loo aqriyo way hadaba hadan ogaanay madaahibta aimada sunnada inay ka madhab dhigay jireen in badan oo kamid ah iyo qaabka uga madhab dhigay jireen aan ogaanay aimada muslimiinta inaysan macsuumiin ahayn ee ay zalaleeyihiin زلدودنا أي مغفورة سيدا حديث كان نبي النسكري صلوات الله وسلام عليه أو بأجر بلوغة قرية إياك وهيكون في ذنوبة لبقلا كون في ذنوبة زلد عالمك لبقلا كون في ذنوبة قرد الكوبات وضعيفة مركي أركان إمامكم مثلا كوكفي أفلقات دينية عيبينية ضلعينية بل حسنات كيسي سيئات مبدلية حسنات كيسي أي سيئات بدلية ضعيفة كلنا وضعيفة عالم كوينيده أقواشي صدمان كدك تصواب عن مرنا بأقبل كريم قلب ضمان بل حتى سيئات كيس حسنات كدقي وحين كدقيان خد إيسا فقه عميق وآد وحيل ده حقنا وقود دحية لبدا الضعيف حق لبدا الضعيف ودحية إمام الشاطبي رحمه الله موافقات وحكوين إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له وذلك لأنها موضوعة على المخالفة للشرع ولذلك عد الزلة وإلا فلو كانت معتادا بها لم يجعل لها هذه الرتبة ولا نصيب إلى صاحبها الزلل فيها كما أنه لا ينبغي أن ينصب صاحبها إلى التقصير وألا يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا فإن هذا كله خلاف ما تقتضيه رتبته في الدين وغيري الإمام الشاطبي رحمه الله عالم كاسم بالرحشدة أما قفك أو قفو ما الله عسككره ما بنانا إلا التقليد سيدو الغطة يدو الله يسكر راحو ليراسك يقو ما بنانا ما حايا للشرع يجي قلافصن إلهي كو سو دجي زلة اللي يراهده زلة الله ما دهين حدي أي ترسك الشوك ما الله يراهدين
sidoo kale waxaan banaanayn caalimka mas'alada ku gafay in lagu tashniiciyo oo la yiraahdo taqsiir uu sameeyay in lagu caayo ma banaana in la yiraahdo sharciga allu si kas ah u khilaafay ama u khilaafay ma banaana dhamaan in la yiraahdo asagoo ogu sharciga ilaahay khilaafay waxay ka soo horjeedaa darajada uu diinka ilaahay ka joogo marka xaqi muxuu yahay imaamka u ducee ixtiraam iyo xurmad badan u hay wanaag badan ay diintan u sameeyeen aimadu waa u qidmeeyeen annagana wax badan ay noo qabteen sharaxoodii iyo jamcintoodii adilada ay jamciyeen aan ka faa'iideysan ayadan diinta ku fahanay wanaag aanan abaalkeeda gudi karin ay noo galeen waxay naga mudan yihiin duco lama ilaawaan man sanaca ilaykum ma'rufan fakafi'u fa in lam tajidu bima tukafi'unahu fad'u qofka wanaag inii sameeyo nabigu sallallahu alayhi wasallam u abaal guda hadaadnaan u abaal gudi karin u duceeyay miyaan u abaal gudi karna waxay noo qabteen uma abaal gudi waxay naga mudan yihiin duco ee aflagaado iyo gaf naga mudna tan kalena ma mudna qowlkooda markay cadaato inuu zalay inaan raacno oo aan ka tagno sunnada nabiga cad ma naga mudna العلامة ابن القيم رحمه الله وحير من له علم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لاجتهاده فلا يجوز أن يطبع فيها ولا يجوز أن تهدر مكانته ومنزلته في قلوب المسلمين. إعلام الموقعين كجزء صدحا سقاشا يشان صفحة وحير علامة ابن القيم قف كسته oo sharciga islaamka iyo waaqica wuxuu si qadca oo go'an u ogyahay qof weyn ee islaamka kule wanaag badan wax badan u qabtay islaamka iyo ehelkiisa meel weyn ka jooga imaam weyn ah waxa dhici karta inuu mas'ala ku gafo oo ku simbirraxdo way dhici kartaa mas'aladaas asaga waa loogu cudur daara oo waa ku dambaabay lama laha بل أجر لغا سينا اجتهادكي ودادالي ما بنانا إن لغو راعو مسألة كو غفايو عداتي أو نسكا شرعيغا قلافسان مانا بنانا إن لقيمة ريدو أو درجاديسا إيا مكانديسا هوس لور ديبو إيا قلوب تا مسلمين تا ميشو كتشوغي احترام كيو هيين إن لقيمة ريدو أو لغا ديبو قف عن معنى لحين ما بنانا لبدا سحاق أو دحيين labadaas daa'ifo ka shar badan jirto oo ayaga dhanba ka shar badan waxay tahay daa'ifo ayaga muhiimadeedu ay tahay inay ruqaska culimada aruursadaan hawadooda ay waxa rabaan diinullaahi inay ka dhigaan ayna iska dhigaan inay diinka alle ku socdaan ka faa'iideysamayaan a'imadii muslimiinta ijtihaadkoodii fiqigoodii fahamkoodii juhdigoodii mid wuxuu iska dhigayaa inuu yahay mujtahid asagoon eer u ahayn markaasuu mas'alo walba rabitaankiisu raadinaya imaam baneeyey imaam u ruqseeyey ruqasku aruursada taasuna waxaa dhici karta inay gaarsiido diinka bax asagoo isku haysta inuu diin ku socdo maxaa yeelay rabitaanu ku socdaahe addoon ilaah adeecaya ma mar haddii uu rabitaankiisa yaa baneeyey meel walba culimada muslimiintuna taasay aad u sheegaan dadkana ilaahay laba u qaybiyey qof rabitaankiisa ku socda iyo qof nabiga adeecsan ilaahay wuxuu yiri subhanahu fa in lam yastajibu laka fa'lam anna ma yattabi'una ahwa wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah waxaad ogaataa nabiga subhanahu adiga hadaysan ku yeelin oysan ku ajiibin rabitaankooday raacayaan dadka ilaahay balwa yaa ka baadi badan qof rabitaankiisi raacay rabitaankii oo aan waafaqsanayn hanuun xaq rabbi ka yimid سليمان التيمي رحمه الله إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك شر كله حتى قادت عالم والبا مسألة بني مسألة انت أسعد أرورسته بلوطن أذي اسكوه كائماني شرطن أذي كوكو كلانت حافظ بن عبد البر
jaamic bayaan cilmi wa fadlihi ku sheegay markaasuu wuxuu yiri hadalkaas markuu soo naqliyay hada ijmaa'un la a'lamu fihi khilaf qofka ruqaska aruursada in sharoqan ku kulantay waa ijmaac khilaafna kuma ogi al-imam al-awzaa'i wuxuu rahimahullah man akhadha bi nawaadir al-ulama kharaja min al-islam masaa'il kan naadirka ee zalooyinka culimada ka dhacan qofka aruursada ee sheekh hebel hada bani war maxsalada xadiis kana khilaafta ee sheekh hebel qab waa madhabka sheekh hebel kaliya intaas aruursada qofkaasu islaamka waa ka bax maxay leeyahay rabitaan ku socda diin ilaahay kuma socdo jaamic bayaan cilmi wa fadli imam ibn abd al-barr ku sheegay muhaadaradi intaasan ku dhameeyay laakiin hal kelimad oo wasiyo ah ayaan ku soo qatimaya ابن ماجه ابن ابي العاصم يقير كود وحي وريان من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وان من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه ورسولك يري صلى الله عليه وسلم dadka waxa ku jira khayr furayaalka khayrka khayrkay furan shartana waa xira meel alla meesha khayr ka imaanaya way furaya meel alla meeshii shar umadaas uga imaanayda haday awoodaan waa xiraya waxa kale ku jira kuwaas cagsigood kuwa shaqadoodu ay tahay inay sharta soo furaan khayrkana ay quful ku dhajiyaan xira markaasuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه تي وناك بدنا طوبى وتعنيث أطيب مؤنث كديو تي وناك بدنا او جنده اهيد waxay u sugnaatay qofka ilaahay ka dhigay khayrka furayaalkiisa gacmihiisa وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه وادي جهنم wuxuu u sugnaaday iyo halaag qof ilaahay ka dhigay furayaalkii sharta gacmihiisa waxaan hadalkaas iyo xadiiskaas ula jeeda qof kasta oo naga mid ah rag iyo dumar culummo iyo dulaab yar yar iyo waaweyn waa in qof walba aad u fakartaa inaad noqoto miftaaxul khayr inaad noqoto naasirka sunnada iyo tawxiidka inaad noqoto qofka ummadda ugu sabab noqda islaax tawxiidka inay tawxiid ku dhex faafo shirkigana ay ka fogaadaan in sunnadii nabigu ka dhex noolaato khilaafu sunnana uu ka dhex dhinto sunnadu ay faafto ittibaacu uu faafo khilaafka sunnada la khilaafayana uu meesha ka baxo in daacadu ay ummadda ku dhex faafto fisqiga iyo macaasidu ay ka suusho miftaax inaad u noqoto si ilaahay jannada kugu abaalmariyo si aad u faraxdo maalinta murugada badan waa inaad ka murugto ka walwasho sidii muuminiinta lagu yiqiin mar walba cabsi aad ka qabto inaad adigu noqoto ummadda mid sabab u noqdo shirki inay faafo sabab u noqdo bid'a inay faafto sabab u noqdo in ay faafto khilaafu sunna oo sunnada la hoos loo dhigo ee aqwaasha khilaafsan la qaato ay ummadda ku dhex noolaato in sabab u noqoto ilaahay uga cabso مؤمنين تصفات اللي يقانوا واحد والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون مؤمنين واحد اللي يقانا وعضتك بحية ضاعاتك أي بحينيا أيها قلوب تودع عبصنا آيات داس تفسير كده أيها عائشة ويدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيث رسولك الله آيات مؤمنين أي شيء يسو ما مؤمنين سينيستي وحضي مياه قمرعبي oo dambigooda ka baqaya ma ahana waa muuminiintu kaday sadaqada bixiyay soomay ilaahay inuu san ka aqbalin ka cabsanayo way muuminka waxa lagu yaqaanaa yajma'u ihsaanan wa khawfan muumin wuxuu isku daraa inuu amalkiisa aad u wanaajiyo miftaaxul khayr noqdo sunnada nooleeyo tawxiidka nooleeyo daacada ilaahay nooleeyo cabsina uu qabo sir ama wax qalad saasa lagu yaqaan ee lagu ma yaqaano inuu iska dhiirado oo uu sharta furo u noqdo asagoon is ogeyn marka qof walbaaba nafsiisa ilaahay ha uga baqo hor istaageedana ha u diyaariyo ilaahay weyna waxaan weydiisanaa
wixii aan asiibay ilaahay inuu iga aqbalo ummadana ku anfaco waxaan ku gafay anigana ii dhaafo ummadana sharteeda ka ilaaliyo وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد